wafdigan ka socday dawladda Kenya oo hogaaminaya gudoomiyaha degmada Gaarisa Cali Bilow iyo xildhibaan Yuusuf Xaaji oo ka tirsan baarlamaanka dalka Kenya ayaa waxa garoonka diyaaradaha magaalada Garowe ku soo dhaweeyay madaxweynaha dawladda Puntland iyo ku-xigeenkiisa iyo gudoomiyaha baarlamaanka Puntland. madaxweynaha dawladda Puntland Dr. Saciid Cabdullaahi Dani oo wafdigan Garowe ku soo dhaweeyay ayaa farxad ku tilmaamay imaatinkooda Garowe. Bismillahir Rahmaanir Rahiim. Waxa sharaf weyn noo ah inaan maanta ay nagala soo qayb galaan wafdi aad u ballaaran oo nooga yimid dalka Kenya oo uu hogaaminayay gobornarka Gaarisa Mr. Cali Bilow iyo senatarada iyo xildhibaanada kaleeto ee dawladda Kenya. runtii waxay noo tahay sharaf aad u weyn wafdi sidaan u ballaaran inay maanta nagala soo qayb galaan xafladan. waxaan uga mahadcelinaynaa runtii in wafdiga dawladda Kenya iyo dhammaan shacabkeedaba sida wanaagsan ay noo soo safreen. waxaan rajaynaynaa ilaahay idinkiis in ay noqoto tusaale fiican iyo xiriir wanaagsan annagoo awalba u haynay abaal weyn oo Soomaalida runtii ay gacan weyn ka qaateen xilligii duruufta adag ay soo mareen. si gaar ah gudoomiyaha iyo senatarada waliba elder senator Xaaji Yuusuf waan runtii aad baan ugu faraxsanahay imaanshadiina Yuusuf Xaaji waxaan rajaynaynaa muddada aan la joogtaan in aad xafladan nagala qayb qaataan kulamo gaarna yeelano soo dhawow. wafdigan ayaa dhankooda ka mahadceliyay soo dhaweyntii loo sameeyay iyagoo sheegay inay ka qayb gali doonaan caleemasaarka madaxweynaha dawladda Puntland iyo ku-xigeenkiisa. weenani celinayna sidoo mudane Cali uu sheegay hadda noogu horeysa Puntland laakiin waa dhul toleed oo weyn baan garan jirnay. maanta aad ugu farax ugu nahay in aan ka qayb galno dabaaldegga madaxweynaha lagu calaamasaarayo reer Puntland. waxaan u malaynaa Afrika hata Soomaali ma dhahay Afrika oo dhan ayay sharaf ay ka mudan yihiin. maxaa wacan doorasho walba doorashadii dhacdo si ammaane ayay ku dhacaan. meelaha kale Afrika wadamaha Afrika say ogsoon tihiin waqti alla waqti election uu dhaco dagaal iyo kala fogaan ayaa imaata. laakiin innaka waxaad tusteen inaad tihiin dad wadani ah, dad dimuqraasi garanayo, dad ma aragtaa tol oo isku wadan ah inaad tihiin. taasna waa nagu hambalyeynayna. salaan aad iyo aad u culusna waxaan iga wadnaa dadka deegaanka Kenya oo dhan, ummadda Soomaalida oo degan iyo waddanka Kenya oo dhan. xataa madaxweynihiisa asagana soo ruqsadiisaan ku imaanay wuxuuna la soo faray inaan salaan nee keenno. marka aad iyo aad u mahadsantiin. annaka waxaan ahay wafdi aad u ballaaran oo Kenya ka imaaday. waxaan ku soconnaa aniga oo gobolka Gaarisa 3 sanada oo county-dii saddexda county Soomaalida ay degan tahay Kenya iyo xildhibaan oo 5 oo wafdiga ugu weynaa ee Kenya ka baxsan oo meel isku raaco oo taga. waana mid aan ku tashanay. waxaan aad ugu faraxsanahay Soomaali